وناقي يقول وارو ودكين ودقي كوعنادو سي وناقي يقول وارو ودكين ودقي كوعنادو guddidii madaxweynaha Soomaaliland u xil saaray ka soo warbixinta dhismaha isbitaalka casriga ah ee Burco oo soo gaadhay saaka magaalada ayaa sameeyay kormeer guud iyo qiimeyn ku saabsan goobta ugu habboon ee laga hirgelin karo isbitaalka casriga ah ee Burco. Guddida oo ah wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo la taliyaha arrimaha dhaqaalaha madaxweynaha Soomaaliland ayaa maamulka degmada Burco iyo ka gobolka Togdheer kala hadlay goobta ugu muhiimsan ee laga hirgelin karo isbitaalka. maayirka degmada Burco ahna gudoomiyaha golaha deegaanka mudane Maxamed Xirsi Axmed xogayaha dawladda hoose ee degmada Amiin Cabdilaahi Yaasiin iyo injineerada waaxda howlaha guud ee dawladda hoose ayaa guddida hirgelinta isbitaalka tusay goobaha ugu muhiimsan ee laga hirgelin karo isbitaalka. Guddida madaxweynuhu u soo diray Burco ee ka soo tala bixinta goobta laga hirgelin doono isbitaalka casriga ah ee Burco ayaa dhankooda u mahadnaqay maamulka degmada Burco ay matalayeen maayirka degmada Maxamed Xirsi Axmed xogayaha dawladda hoose ee degmada Amiin Cabdilaahi Yaasiin iyo barasaabka gobolka Togdheer waxaanay tilmaameen in xukuumadda wadajir iyo waxqabad ee uu hogaamiyo madaxweynaha Soomaaliland doonayso in Burco laga dhiso isbitaal caalami ah waxaanay tilmaameen in qorshahan dhowaan la hirgelin doono. sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo la taliyaha arrimaha dhaqaalaha madaxweynaha Soomaaliland oo ay wehelinayeen maamulka degmada Burco ka gobolka Togdheer ayaa soo kormeeray isbitaalka ciidamada booliska iyo sidoo kale isbitaalka guud ee Burco waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer isuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha guud ee isbitaalka Burco. Isbitaalkani casriga ah ee xukuumadda wadajir iyo waxqabad ay ka hirgelinayso magaalada Burco ayaa ah isagu mid dabooli doona baahiyaha caafimaadka ee loo tagi jiray dalka dibadiisa. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi.